waxay hagaagta isu soo hilowda markay horumarkoodii ka hadlaan dantooda heshiis la isla meel dhigo bulsho waxay hagaagta isu soo hilowda markay horumarkoodii ka hadlaan dantooda heshiis la isla meel dhigo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo sida aad inoo daawanaysaan halkani waa stuudiyaha telefishinka bulsho uu ku leeyahay magaalada Jowhar waxaadna ku soo dhawaataan barnaamij gaaban aan ugu magac darnay muuqaalka bulshada barnaamijka inta badan waxaynu diiradda ku saari doonaa ganacsatada iibisa hilibka isla markaasina ka ganacsata suuqyada magaalada Jowhar iyo waxa ganacsigooda uu yahay iyo qabashadu ay qabaan ayaan barnaamijka ku eegi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa danyarta ku dhaqan kaamka badbaado iyo waliba sida kaamkaasi ay ugu nool yihiin waxyaabaha ay tabanayaan iyo codsiyada ay dirayaan ayaan barnaamijka xilli aynu booqanay muuqaal idin kaga soo qabanay waxaadna ku daawan doontaan barnaamijka muuqaalka bulshada aan ku horeyn doonaa oo si gaar ahaaneed barnaamijka aynu ku eegi doonaa ganacsatada ka ganacsata hilibka gaar ahaan kuwa suuqa hanti wadaag waxa ay ka cabanayaan isla markaasina ay tilmaameen inay haysan meel dhameystiran oo markaasi hilibka lagu iibiyo waxayna sheegayaan in xilliyada roobaadka ahi ay dhibaatooyin ay kala kulmaan roobka da'aya iyo sidoo kale inaysan haysan hoy dhameystiran oo ay ku ganacsadaan iyadoo ay taasi jirto qayb ka mid ah suuqa lagu iibiyo hilibka waxaa ku yaala qayb kale oo dayactiran dhismana lagu sameeyey isla markaasina qayb ka mid ah ganacsatadu ay ku leeyihiin xarun ay ku ganacsadaan haddaba qaybta dibadda ka joogta xaruntaasi oo aan muuqaal baahiyaha telefishinka bulsho la dhex qaaday ayaa waxaa ina dhex maray hadaladani iyo weliba sheekadani soo socota waxaan codsanaynay in canshuurta 2 kun noogala dhigo waa iska baahan ridaas risaq ka raadin ri islaameed oo soo daysanay ayaa miiska soo saarana waxaan codsanaynaa in 2 kun noogala dhigo waa rafaadna waa dhibaatoona hadda ilaa marka u jeedo sidii balaayi amal lagu gudido waa carraysa marka canshuurta u jeedo 10 kun ma awood xoolaha adiga waxaan ku soo iibinaa waa iska soo jiidanaa oo dad oo dayn oo u yeelan ka soo qaadanaa markaasay waxay rabaan ay sheegtaan niyo anaga horta sidayna banaanba waxaan ganacsanahay maqaaraha oo erigan ganacsanahay xaaladoodan meel xun meemaroosa eber waaye xasilkoon ka tagna waxay raaka dhimaado waxa ku soo biirnay kawaanka inaan ka qaraabana ku soo biir qayma raqiis ah noqdeen wax raba waxa malo iska xariinuna meel iska xariinuna maqaarka oo idaha waxaan ku iibsanahay ebilkoor qayma oo gadi jirnay waxay aajirtay xabadka 45 oo gadi jirnay haddana maqaarka idaha waxaan gadanay 2 kun ircadkan waxaan ku gadanay 5 kun halkii la sii geeyaa marka aad iibsan waxa la sii geeyaa muqdisho la sii geeyaa xariyaal meel leeyahay la geeyaa waxa lagu qabtaa maqaarka كل مقارته كل أبو دبي اللي سيجي هذه وعياه بورسوين يكوي يلا قصبيها كل اللي شيء كن أو ما دام قرح اللي قطع فدنا أون دبعته إحنا لو قبر على الهين عاصم دعوان كقبنا عوشنا واكم وجنينا مرة واكو قصارنا مرة ندب كان كشيرنا وحن قعد سيرة معمولك لا ودي كنا نلوق ديجي جرينا نلوق ديجو
halkaasi kaga nimaadno muuqaalkaasi ganacsatada weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii gaarka ahaa aynu ugu talagalnay in aynu xaalada bulshada aynu ku ogaano waxaana barnaamijka loogu magacdaray muuqaalka bulshada. danyarta ku dhaqan kaamka badbaado oo ku yaala magaaladani jowhar 4 xaafadood xaafad ka mid ah laguna magacaabo xaafadda horseed oo aan booqasho ugu tagay ayaa waxaan wax ka weydiiyey xaaladda iyo weliba cidda halkaasi soo dejisay. danyartu waxay sheegeen in maamulka gobolka uu halkaasi dejiyey isla markaasina ay haysan nolol dhammaystiran. kadani ayaana dhex martay annaga oo goobayna xaaladda muuqaalka bulshada in aynu soo ogaano. توصلوا تمشي يعني جار مديبي كري هذه ماشي أنا أسكي نولنا أسكي جوكنا درماي دحوانو تميس ميلا أكل مالك ويلا أنا هاي ساي باي وأنا هاي ساي هذه واحد ريال أنكو قبنا مالا هذه معون يو ولا بدو معون يو يوري هالمرنول السيما وحكلو غرق تمشي صابون halkaan iska jooga dadweynahan baa guriga ii dhisay halkaan baan iska jooga gurigayga iyo hooygayga waan iska jooga maalintan wax helana waan cunaa maalintan wax waayane muslimkaas baan ku dhaxnoolaa noocaas baan ahay 4 ciyaal ii joogto 4teeda ciyaalna aan baa haasto coos baan u guraa jaay baan u bixiyaa wax kale oo dhaqaaq aan leeyahay ma laha noocaas baan ahay hadda waxaan idinka codsanayaa inaad daryeel ii fidisaan hooy ilmahaasna aad ii geysaan waxbarasho. kaamka 3 sano deganaa wixii kale kusii horeyna xamaran ka soo barkacay ilaa 4 sano inta deganaa inta ilma ma ii joogo haddana waxa uu ii shaqo oo hayo male hadda saan kula hadlay qodosha igu dhacay laba isbuuc intaan ka joogay ma hadaan joogi intaan imid hadda kula hadlay qodosha ay hayo waxaan ku shaqay ilmi male hadda waxa uu ii wax uu awada ugu jiifiya taa ma haysto u baahanahay inay noola daryeero masaakiinana duqowda in wax siinay ma dadka yaryarka oo joobanaha aalisiyohaya maxaa u baahanahay inaan oo noo dalyeeshiin oo wax nasiisiin masaakiinana hay aan u baahanahay. waxaa la yiraahdaa sadar muuqda su'aal ka dhan waa u jeedin guryahan sida hadda ay yihiin wax bac hoos saaran ma jiraan xilli rooba lagu jiraa roobkana 3 wal xataa hadii aad haysanin cariiriya ku cariir galiha bac iyo busto iyo sansiyeer raashin wax lagu qayliyo amba lagu cabaada ma aha ilaaha bixiyo qof waliba ilaaha risaqeeda ahaaya balse bacdi wixii kaneecada laga gali lahayo lama haayo marka guryaha hadda waa u jeedin biyaa ku dhex jiro guri aan cawada la seexaheynina ku jiro waxaana keenaya bac la'aan marka taas waxaan leenahay maamulka iyo hay'adaha waxaan u sheegaynaa in meeshan loo soo lahaado muxuu ahaa il gaar ahaaneed roobka hoosan biriga da'ay bacna ma haysano saana boos ku joogna waxna ma haysano biriga
meelan uu ka joogsan laana bacmadoo baclan oo keendino aqala saaran waa u jeedin dhibaatada nagu haysa meeshaan biyaha aan u dhex taaganahay ciyaalkayna waa kuma u jeedin waxaan u baahanaa maamulka gobolka degmada waa in nagala soo gaaro bacyaan u baahannahay waxaan cunnaan rabnaa ununkii ciyaalkayna biyahaanaan ku dhex jirnaa si degdega waxaan ka codsaynaa maamulka inuu naga soo gaaro 3 sano ka xaagnahay degmadaanaan joognay oo cali guudlaabana keeni inta ka soo 8 bilood daam wax ma haysano bacyi waa naga dhamaadeen buushleen taaganahay 2 sano ka xaleegnahay 8 bilood inta sano iyo 7 bilood aan joognay kaambada dhexdeeda dacaar leena ku jirnaa iyo bac oo jaajeexan wax aan ka haysana male muuqaalkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijka gaarka ah ee ugu magac darnay muuqaalka bulshada idinkaga imaanayay telefishinka caalamiga ee bulsho xarunta magaalada Jowhar uu ku leeyahay anigoo Cabdifataax Ahmed Maclow Cabdifataax Zaki ayaa stuudiyaha barnaamijka idinkaga soo jeedinayay waxa barnaamijka kaameramankiisa ahaa Cabdi Cabdullaahi Xasan intaanu ku kulmi doono barnaamijkan mid la'ayna isma dhaafno salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh waxay hagaagtaa isu soo hilowda markay horumarkoodii ka hadlaan dantooda heshiis la isla meel dhigo bulsho waxay hagaagtaa isu soo hilowda markay horumarkoodii ka hadlaan dantooda heshiis la isla meel dhigo